hor inta aan la gaarin waqtigii ay jadwaleeyeen oo ku beegan dabayaaqada sanadka 2025 doorashada madaxweynaha maamul goboleedyada in la qabto bartamaha sanadkaasina la qabto doorashada dowlad goboleedyada ee dowladaha hoose iyo soo kala baarlamaanka waxyaabaha kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasaare Xamse Cabdi Barre ee qorsheynayaan in Jubbaland go'aan ay ka gaaraan waxa kamid ah in aysan dawladdu wax wada shaqeyn la yeelanin sidoo kale Kismaayo uusan ka bixi karin dalka oo dhan uusan ka bixi karin qofkii ku soo baxa doorashada ka dhacda Jubbaland oo bal la og yahay inuu noqon doono hogaamiyaha maamulkaasi hadda talada haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dawladdu waxay qorsheynaysaa in Jubbaland gaaraan Axmed Madoobe haddii doorashadaas oo qabsado isagana oo soo baxo inuu Kismaayo ku sugnaado Kismaayona meelna uga bixi karin haddii uu dalka ka baxana oo san dalka dib ugu soo laaban doonin haddii meel kale oo dalka Soomaaliya ka midana oo safar ku tago in aysan jiri doonin diyaarad qaadi karta ama talaabo kale oo sameyn